السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي مولا وصعنا مانتا وجيت وعدة الصيام عشان دقنا عدلات عدلات يسيمي كوري حتى صبحني هايوي ولي لما قعدت هايوي لقلي دونا. So 6:11 my time. So السلام عليكم مانتا. I'm so sorry مانتا. I just bombshell إذا كنت هورا وإذا كنت هجي I didn't explain anything and I just was pissed off والله. marka Soomaali hadaynu nahay haweenkeena inaan kor u soo qaadno way Santa Claus nooma soo degayo. Santa Claus waxa la dhahay oo soo degayo oo fiksi gareynayo naag Soomaaliya saanliya naag Soomaaliya victim naag Soomaal ayada victim iska dhigtay ayada naaga kale inay victim ka dhigtay rabto. So naagaha Soomaalida they have to do something. They have to do something for their lives. inay caruurtooda maxaa la dhahaa ay xoriyadooda siiyaan extensionkooda inaysan ahayn ayada haddii option haysanin caruurta option way leeyihiin. So ilmaha maahan inaad celisid haddaa saarata aada ku soconin maxaa la dhahaa you are not my kid aniga ma tihid cunugayga ma tihid kan ma tihid waxaas wax soconaayo absolutely ma ahan. marka something to do with our culture ilmihii pressure fara badan baa la saaraya waxaa la dhahayaa mataqaanaa by the way waxaa soo qoraysaan ma akhrin karo waxba ma soo baxooyo. So extension ma aha fikradda meeshaan markii la bedelo actionka bedelmaayo actionka ma iska bedelmaayo waa inaa ku qanacdaa inta ilmihii pressure fara badan baa la saaraya expectation baad ka leedahay noloshaadaad rabtaa inaad noloshooda through them inaad ku noolaatid kaas ma soconayso wax soconaya iyo wax oo la ogol yahay midna ma ahan iyo wax acceptable ama ahan. naagaha isku caayaysan caruurta heblaay gabadheeda soo gabadhaay wiilkeeda soo heblaay kan waa kaas waa inaad joojiyaan because maxaa la dhahaa fuulki ma aragtay oo dabkiyaa saliidii iyo benziinkii lagu sii ridaya marka pressure baa hooyooyinkan la hooyada adult waay she has to suck it up and know what is good for her kid honestly. waa inaad caruurtaada waxa u fiican aad ogaataa caruurtaada entity gooni ah weeyaan individual weeyaan iska dhaaf let them figure it out. marka I'm sorry inaan maxaa la dhahaa aan xoogaa naaga Soomaalida aan ku tufayo still wallahi mushkiladda communitygeena naagta weeyaan carabta waxay ku mahmahaan mataqaanaa maxaa la dhahaa madrasatun maxaa la shawqi waa shacirkii uu sameeyay maxaa أمير الشعراء muxuu dhahay الأم مدرسة أعدتها شعبا طيب الأعراق شعبنا هجاجة دارت الجرو كصوب حياة هو جدا سبب marka hooyadaana laakiin hooyada hadii hoos loo dhigo oo la dhaho adiga weligaa guardianship baa u baahan tahay wiilkaaga kuma herinaayo 15 jirka maxaa la dhahaa walaalkaa inuu kuma heriyaa 60 jir haddaa doesn't matter you don't have a brain to think naaqisaat alcaqli wadiin aan sidii la rabana lagugu soo fasiro. Oh my god maxaa la dhahaa qorax badana maanta jirto marka naagtii naftirkeeda self esteemkeeda hoos waa naag baa meeshaan soo istaagay isku dhahayso aniga kontana ahay aniga nin maxaa la dhahaa raggii baa hadlaya aniga maxaan seegaya no haafatiin haafa mujtamacaa tahay nin ma jiraay naag la-aan naag ma jiraysa nin la-aan waxa weeyaan waa opposite waa habeen iyo maalin sidii loogu baahan yahay oo kale shams wal qamar. marka idinkana caqliyadaas ma aragtay haweenoo maskaxdaaneed iska bedela. You are equal to man. The only thing loo ogolaado waa erifka waxaana erifka waxa way dhaxalka because isaga responsibility zaa'id buu leeyahay waa idiin sheegay wiilkaaga $100 intaas gabadhaadna $50 ma dhihaysid gabadhaada $50 adaa iskala bax qolkaaga tag waxaad dood ka soo gado wiilkana aad tirada $100 aan ku siinaya basal tuun iyo kan iyo bread soo gad konton taas ma dhihaysid. So isaga lacagta waxaa loogu baday isagaa mas-uula isagaa inuu soo gado isagaa provider ah isagaa meherka bixinaya isagaa guriga hagaajisanaya isagaa ilmaha maxaa la dhahaa supportigooda u baahan. That's the only reason because responsibility badan baa saaran. That's only thing qof idiin fasirayna male because saasaa la rabaa inaa u fahakartaan inaa weligiin aad dareentaa inaa ninka ka hoosaysaan. That's wax la idinka rabo weeyaan idinkana you fall for it. gabadhii rabta inay waxoogaa ka fakatane
rabin aqliyadaas ka fakatana kulligii naagaha bacayna waa dhilooy waa kan bay adoon bay aroosatay cadaan bay aroosatay buuri qab bay guursatay ajnabi bay guursatay idinkii baa cunaya because in an individual noqotay rabta group thinking ma rabto stupid aqli ma rabto in a group thinking ma rabto sheepish ma rabto marka waxaa la dhahaa mataqaana diintii marka waxay noqotay maxaa la dhahaa shaabuug afkaba haddaa furtidba oo ilaahay saas wuu yiri ilaahay cadaaladiisa ma ka sheeg fiir xadiis baa ku jiro muslim bukhaari muslim soo marar oo asax alxadiis bacda alqur'aan muslim buu ku jira hataa idinka akhrisateen aakhira waxaa imaanaysa ku leeyahay sida isaga aakhira looga soo sheekeeyey aakhira waxaa imaanayso muslimiinta ninka muslimka ah jabal iyo naagtaba jabal oo dunuubbaa la imaan jabal waxaa waay mountain of dunuub ah markaas intii laga qaada yuhuudigaa loogu shubaaya heydka yuhuudda intay ka imaataa lagu dhahaya falastiin shaqo kuma laha buwaagteena oo ku jirto weeyaan maxaa lagu dhahaa cadaaladda ilaahay baa laga shakisiinayaa maxaa lagu dhahay makasee jabal oo dunuubaa tahay muslimaa tahay hey browniyaa leedahay aakhiraa imaanaysa akhriya kutubadiina axaadiistiina akhriya idinka luqaalidin soo doodooraya inta kale waxaa laleeyahay hadday ay kuwaan loo sheego kuwa kale amay diidaan yacni caqligaaga laguma trustgaraynayo soo caamaa tahay waa lagaa dhaadhiciyey xadiis waxaa ku jiro qofka muslimka ah wuxuu la imanayaa dembi oo mountains kala eg markaas intii laga qaado yuhuudiga loogu shubaaya inta laga qaado christianka loogu shubaya inta laga qaado akaaska hada cadaalad miya marka yacni adduunka xataa qof muslimna wax hadaaya okay dembigiis intii la qaado qofka christian ama qof oo yuhuud ma la saari karaa hada adoo bini aadam cadaalad daradaas ma samaynays ilaahay cadaaladiis xataa beenaa laga sheegaya dadoo iska fikira aniga keliya ma raba inaan wax laakiin inaan fikirtaanaan rabaa gabdhooy waxa meeshaas na gaarsiiyey cilmi la'aanta iyo diin la'aanta iqra ummati iqra ma laa naqra raysiska guriga laga bilaabo sheekhi quraanka dhigaya ku dhahayo yuhuudiga kanuu noqonaya yuhuudi abnaa alkhanaasiir waaye kan waaye adigoo kale ma waa ku weynaanaysa adoo xaqdi iyo xasad iyo the other adoo nacaysid ومن شاء فليكفر ومن شاء فليعبد بالقول ما تغنى بل يؤمن قفك ربها آمين قفك ربها كفر آية القرآن كجر لا حديث على الله صباح إلى مايا أمرت أن أقاتل حتى يقال لا إله إلا الله إلا الله بائلي أمر so ISIS يوم حالدها شباب كان تورستياشن يوم حالدها القاعدة بوقتها أخرناين لكن إذا عادي دي إسلامك ودين بيس يا كام قلايو كسر أحاديث بنت أمريكا أحاديث سفي عن أفسر هذيك عليه because you don't want to هذين مسلم إيو بخاري إيو مقعيدة أو colorful كصوري بين شيء بين بيشيء إن هذين مرة بتسمعها أوكي أشيء لكن سفي عن أفسر معني هيس وقت جاسو أهادها للقرآن ما هاني يا أخي صاقة بخاري المسلم والنووي نساء قريجين صادق تأخرست تفسير كي سفيرية does make sense عدالة إلهي عادل وي one thing إلهي أن أوكي عادل ويان مثقال ذرة خير هذا سميت واهليسا قال لي مسقطاتا مثقال ذرة وآتم أو شر هذا سميت وأركيسا waxaan soo galnay magaaladan soo galnay internetkayga gooyo hadda highwayga soo intaasoo dhan highwaygan kusoo socon Soomaalida moolkooda u socdaa intaasoo aan soo socday weli hadda waxay noqotay 12:20 weyna ma dhowi marka xaafadayda haddaan ka soo baxay hadda waa kan waxaan galaynaa meeshan dawaarka oo circle-ka haddan maxaa la dhahaa highwaygi magaaladii kale oo Ottawa la dhahay hadda u socdaa waa kana hadda highway-gan saaranahay that's how far I live 417 hadda soo fuulay marka maxaa la dhahaa still ma dhow hadda leeba saaranahay marka dadow saasaa idinku sheegaya fakara diinta ilaahay aakhiro lama dhahayo hebelow لقد أطعنا سادتنا وكبراءنا بآخر الحياة سادتنا يقبر محلها كبراءنا كوين ووينا شيخ أمالان راعي شيخ شبليان راعي
sheekh mustafaan raacay sheekh nawawiyaan raacay sheekh hebelo ibnu taymiyan raacay aakhira you cannot save you from aqliga ilaahay ku siiye jiid qof kale fahamkiisa adiga lagu guriga uu ka soo baxay iyo bii'adu ka soo baxay iska bii'adaadi ma aha shaqo isku malhid meel naag laga gumaysanayo naag la gadanayo oo jaariye ay tahay ay ka soo baxeen adiga ma ogashahay marka gabadhaada in saas lagu sameeyo you don't marka waxaan waa man made weeyaan ma ahan ilaahay quraankiisaasu ilaahay ku sheegay iyo axaadiista quraanka maxaa la dhahaa sabitinaysa anything else waa ra'yigooda weeyaan intaas keliyaan rabaa dadkayga inay fahmaan ilaahay subxaana wa tacaala acdal caadiliin weeyaan cadli waxaan ahayn xukumka ma soconayo asaasan xukum cadliga weeyaan فعدالتيبا وحاي اللي يري إلهي أبا دتك محالا نعتي نص كدقة إلهي ناقصات العقل والدين سي آخر زاني وزاني دي داع عقلي النص هذه ما فكرتي آيات دس كارت الزاني والزانية مركي اللي قلنا هاي فجلدوما 100 جلدة أنا النص عقلي جيجا ننكا إيجا عقل بضا سو أنا ما حافل إيجا ديجو وليجا ما فكرتي لأن قفك بين آدم كنولج كيساتين مدهن اسكو عقاب ملا ديجي كرو عنق تمن جرأة يا عنق لما جرأة اسكو سوح وقما شيء يجيسد isku soo qaabta ma u sameynayaan yani weligaa ma fakarta quraanka ma akhrisay ma fiirisay how come is that matter gabdho aniga idinka idin lahada nimanka a lot of things to lose they leeyihiin they don't want a power code inay lose karayaan they don't want it so it's your job because aakhiro waa u simantii buwaagtiina labadiina waa la keenaya may kanin waaye ciqaabta loo badiyo lama dhahayo same thing هذا واحد يصير سوكال الله نقول عقابة هذا زين يصير هذا خمر عبد يصير سوكال وهي عقلي أقول يرتاح مركب لأن عقلي أكو قرأت غلط كواهي ستاي صح إيه واي وحكى الأسمين كريم عقلي المل وجوه أمر تدبر عنق لقاعد تكواهي ستا هوياتها هوي سومالية وأنا المهذا كرستا أوكي عقليgaas oo toddoba cunug lagaaga tagaanin inuu albaabka waa macawsiisa qaato waa leedahay laakiin marka tiraado wax inaan noqdaan rabaa oo naaqisaat العقل wadin qaadima noqon karto wax ma garan karta waa kontalee waa aqli ma la waa iska naag oo hadalkooda aad ugu leeyahay ma naag baa la hadli kara ma naag baa la tartami kara adigana waa farxaysa hoosa lagu dhigooyaa markii boqolaal sano hadalkaas lagu adan gabadh asaas leh ugu sheegaysaa wiilkaaga asaas leh ugu sheegaysaa this doesn't cut off weligiisaanu ku soconayaa anyways weli ma dhadhowi waa kanaa weli jidkaan kusii jirnaa that shows meel fog inaan deganahay magaalada aan ka fognaa moolka soomaalidaan u socdaa waxaan rabaa sajaado wiilashaydaa sajaayooyinkii qaata marka ani waxaan jeclaa sajaayooyin badan oon isbeer aan dhigto marka waxaan u socdaa moolka soomaalida sajaayadooyinka salaada aan soo aruursanayaa because hal qolkaygu yaalaa hal basemku yaalaa hal meesha aan aniga fadhiiskan cagaarka ah wiilashayda way qaadanayaan ma soo celinayaan marka we need a lot of sajaayado ilaa 6-7 dooxa baan soo gadanayaa soo hadday qaadanayaan isbeer marka imaama leanna maanta wiilkayga masaajidka u socda wuu sooman yahay marka masaajidka hadda loo qaata marka wuu yimid wuxuu yiri sajaayada badanaa u baahannahay mid inaan gaariga ii yaalo mid aan guriga ugu imaado mid aan iska haysto marka that's why aan hadda u soo baxay sajaayad aan soo qaadanayaa weli magaaladiina ma dhadhowo markaan halkaas gaaro soomaalida aan meeshooda gaaro waxaan rabaa inaan maxaa la dhahaa waa idin soo masawirayaa mujeeda weli ma dhowna 25-11 aan ka soo baxnay 6-11 marka yaa hadhow waan idinla hadlayaa insha allahu tacaala in sidaan fariis aan iska fadhiyo I want to talk to you guys oo maxaa la dhahaa aan waa idinla hadli doonaa maxaa la dhahaa he doesn't want to be in the camera so I'm not gonna do it so yeah magaalada waa soo gal hadda u jeednaaba light because hadda magaaladii soo galnay laakiin weli wayaan marka insha Allah taala intaas ay idin sheegi rabay gabdho wax barta اقرأ
kutubada soo gata Amazon by the way Bukhari wuxuu ku yaal Amazon u yaala so English ka dalbo hadaa rabtid akhriya wuxuu ku fiican baab u leeyahay baab nisaa baab maxaa la dhahaa zina baab this akhri waqtiga ku qaadanaya akhri the best thing in meeshaan fadhiis hiblaayo maxay tiri hiblaayo video wasaqa laga soo daayay hiblaayo ninkeeda ka tagay hiblaayo gabadheeda saan samay hiblaayo wiilkeeda saan intaan ku mashquulsan leedeen maalintii hal xadiis akhriya fahma fiiriya aayad akhrista بلغوا عني ولو آية رسولك لو حديث مريض بلغوا عني ولو آية حتى هالآية dadkay ka gaarsiiyo dhax so intaas ay dadkay keenaya jidkan soconaa wali still adlaan soconaa wali waanu jidaan marka insha Allah taala markaan soo socdo ama moolka dhaxisa idinka soo masawiraya insha Allah video intaasaan ku keenay assalamu alaykum wa rahmatullahi qoraxa jirta عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باي باي